بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدي عادي هيد warbixinta bulshada Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha hadda waxa soo baxay shariic cusub waa sharci cusub magaciisa waxa la yiraahdaa Otarkala Optulstone yani sharciga oo dadka laga ceshinayo waana sharci cusub ujeedada loo sameeyana waxay ahayd inay buuxiyaan sharciyada ay u dejiyeen qoladan xisbigan xag jirka iyo kan wadanka xukuma sida baasaboorka Swedishka loo qaadanayo fikirkaasi soo gudbiyeen oo la sheegay in baasaboorka dadka aan la siinayn fikirkaas la iskuma raacsana dib baa loo celinayaa waa la soo baranayaa dad baa loo sameeyay inay sameeyaan oo soo baara inay sidii ka yeelayaan waxa maanta sheegay wasiirka arrimaha socdaalka baa sheegay dadka la ugaarsanayo oo la rabo in baasaboorada laga qaado waa dad sharciyada haysta iyo dadkii ay keeneen xataa dadkii la keen dad baa yimi Sweden way isdhiibeen dadkoodii bay keensan xaasid iyo hadu caruuriya waxay tahay baa kuwaas weeye dadka la ugaarsanayo tiradoodu waa 98,000 ilaa 180,000 oo qof xataa waxa la yiri dadkaasi waxa jira dad joogay ka badan muddo 10 sano marka falaarta cirka loo ganow nin walow filo insha Allah khayr bay noqonaysaa intaasina warbixintii maanta soo sharci cusub soo baxay inkastoo aan wali la isku raacin insha Allah ku khayr